إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي هونا حريست عمر حاشي oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo mar dhoweed ka helay xorriyadiisa dawladda Talyaaniga kadib markuu halkaas ku xirnaa muddo gaaraysa 19 sano. Cumar Xaashi ayaa loo xiray kadib markii lagu soo oogay inuu ka dambeeyay dil haweeney wariye ahayd oo Soomaaliya u tagtay inay baarto maraakiibta wasakhda ee dawladda Talyaaniga oo waagaasi ku shubi jiray badaha Soomaaliya kiimiko. 1994 ayaa lagu soo oogay Cumar Xaashi oo markaas joogay Soomaaliya inuu ka dambeeyay dilka wariyahani. Dadaal dheer kadib ay qaadeen qaadiyaal Soomaaliyeed ee jooga Talyaaniga iyo kuwa kale oo Talyaani ah ayaa lagu soo daayay Cumar Xaashi 2016. Cumar Xaashi ayaa xor ahaa oo dibadda joogay muddo gaaraysa 6 sano. Ilaahay ha u naxariistay Cumar Xaashi ayaa sidoo kale 2021 ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay madaxweynaha Soomaaliya laakiin uu halkaasi ka soo muuqan. Cumar Xaashi ayaa magdhow uga helay dawladda Talyaaniga lacag gaaraysa $5 milyan. Asoo laabashadiisii uu ku soo laabtay dalka iyo magaalada Muqdisho, Cumar Xaashi ayaa maalinimada maanta sababsaday qarax loogu xiray gaarigiisii halkaas uu isla markiiba ku nafwaayay. dadweynihii u soo gurmaday ayaa halkaasi kaga dhawaaqay Cumar Xaashi inaan lagu soo gaarin nafta uu halkaasi ku nafbaxay. Cumar Xaashi ayaa la sheegaa inuu ahaa muwaadin firfircoon oo dageliyay dadaal si uu naftiisa u siin lahaa xorriyad, haatana waqti ku qaadanayay waddankiisa hooyo.